dawladdeena inay wahaabiya u taliso ma ogolaanaynaa dawladdeenu yayna noo muujin inay fikirka wahaabiyada la jirto waxaan maanta isugu nimid magaalada Muqdisho inaan shucuurteena muujino waxyaalaha ka jira gobolada dhexe oo dad caqiidada ahlu sunna wal jamaa haysta oo duruq suufiya kamida in deegaanadoodii iyo waxa weeye guryahoodii ay joogeen lagu dulgeeyay ciidamo oo la isku dayay in lagu laayo oo lagu duleeyo iyagoo aanu aragno nidaam istirnacayba inuu yahay waxaad ogtihiin dadkii caqiidada wahaabiyada haystay inay dhammaantood hadleen oo ay muujiyeen dawladdii Soomaaliyana ay ku garab siisay istirnacaybkaas in la diriro qofka adiga ka midka ama gobol ha joogo ama meel kale ha jooga waa cudwi waahid dadka muslimiinta waa hal xubin oo kaliya caqiidada ahlu sunna wal jamaa dadka haysta waa dad hal xubin kaliya ma aha gobol buu u dhashay deegaankaas ka soo jeeda siyaasadda iyo wad qaybsigu waa gooni laakiin qof adiga xubin kaamida oo caqiidadaadii haysta oo diinkaaga aaminsan oo dariiqadaada haysta in la duleeyo waa inaadan ogolaanin dadkii waxa ka shaqeeyay waa inaad adigu shucuurtaada muujiso muhiimaddu waxay tahay الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة وحكو قرن وحا حكمتاس waxay tahay حق ayaa mar walba ka sareeya awood walba oo qofka bini aadamka uu sheegto waxa ka sareeya xaq shayga xaq ee rasmiga ayaa mar walba ka sareeya way sidoo kale wal ummatu fawqa al hukuma dawladda aad maqlaysaan shacabka ayaa ka sareeya way ummadda ka sareysa dawladda dad maqasho waa shakhsiyaad loogu talagalay inaga inay inoo adeegan caqiidadeena iyo diinkeena inay dhaawacaan miye xaq u leeyihiin qof inaga naga mid oo diinkeena iyo caqiidadeena haysata dawladdii inaga la inoogu talagalay inoo shaqayso inay dhaawacdo miye loogu talagalay waa inaan shucuurteena muujino caqiidaynu leenahay macali maxamuud sheekh xasan faarax iyo sheekh maxamed shaakir cali xasan waa dad ahlu sunna wal jamaa waa dad ahlu dariiqa waa dad nasabkooda iyo asalkooda kulligood la wada yaqaano dawladdii Soomaaliya inay ciidamadii xoogga dalka ay u isticmaasho caqiidadii ahlu sunna wal jamaa isirkeedii nacayb ay u qabto in loo abaabulo waan ka soo horjeednaa ma noo qalantaa taasi nooma qalanto Soomaaliya waxaan meeshan isugu nimid inaan shucuurteena muujino inaan ka xunnahay annagoo joogno gobolka Banaadir annagoo joogno caasimadii Soomaaliya عقيدة أهل السنة والجماعة ضد هيستا إلا ذلية إن أننا أقولين إن مروا البحق ومروا البصرين دونه دولة نماذا صوماليا واربنا دولة الصومالية كما سهر جيدنا دولة قولية كما سهر جيدنا ووح سيستم ومروا البلوبة هيا إلا مروا لكن مقعي دين إسلام كوي كل عياري وأرقق حسدها ووهابيتها ومنهج كي إسلام كلا ديريري ما أنت إن ضدك لا دجالمي لا دليو أو لا جدولو حق مين قبتها تاس وان كسهر جنا دولة الصومالية هاي سكول لابطو هذا سكول لابن ويدنا ده أهل السنة والجماعة ويسكو ميت ويسكو عقيدة قف إيجا كميدا إن لذليو أو وحلاق الشيخو أو العايو ما أقولين إلا الدلا إسكبا داي وحاد نوغاتان شيخ محمد شاكر علي حسنية معلم محمود والله ما شخصي hadday dhintaan iyo hadday noolaadaan ba xilligooda ay qaadanayaan oo Ilaahay ugu tala galay laakiin dadku caqiida oo mabda' leh inay gobolada dhexe joogan oo iyaga inay waxa way ay xamar joogan oo gobolada kale Soomaaliya ay joogan taas dawladdu waa ogaato dadku caqiida ku mabda' ku waxa way mar walba in wax laga sheegana aan ogolayn dalka inay joogan ha ogaato saraakiisha ciidamada inay ku jiraan ha ogaato kuwa la khalday oo dawladda ku jiro afkaarta argagixisada aaminsan dawladda Soomaaliya waxa ku jira dad caqiidada ahlu sunna wal jamaa haysta waa la midoobaya waana la israacaya dhulli iyo waxa weeye wahaabiyo iyo wax la midana ogolaan mayno miyaan ogolaanayna dawladdeena inay wahaabiyo u taliso ma ogolaanayna dawladdeenu yayna noo muujin inay fikirka wahaabiyada la jirto dawlado badan oo noo soo socdo wadanka ka dhismaya yayna ismuujin inay fikirka wahaabiyada garab taagan yihiin maaliyad baa lagu bixiyaa adduunku wuu taageeraa fikirka argagixisada iyo wahaabiyadu meesha ka yimaadeen marna nama soo galaan laakiin dadkii dawladda hoggaanka ku ahaa yayna horboodin yayna iyagu isku tiimbarin iyaga noo baahan inagu shacab baynu nahay malaayiin baynu nahay isku caqiidaynu nahay
dawladdu iyaga inoo baahan inagu uma baahnin ma dawlad baan u baahannahay laakiin iyaga inay aaminaan baa la rabaa dad shaqaalaha oo inaga noo shaqaynaya inay yihiin inaguna aynu ka awood badannahay shucuurteenna waxaan isku boorinaynaa dadka gobolada dhexe jooga iyo kuwa gobolka Banaadir jooga kuwa meelaha kala jooga kulligood shucuurtooda inay muujiyaan inay ka xun yihiin waxyaalaha la samaynayo inay dawladdu ku duusho meeshaas waxa way dad muwaadiniina oo deegaanka u dhashay weeyaan gudnina gurigiisana laga celin karo shariicada islaamku way qabtaa difaacu nafsi wax la yiraahdo gurigaaga iyo naftaada iyo maalkaaga midna inaan lagu duulaabi karin